السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله فرماجو أيا مانتا حير مدحوينكم مقعابي قدقة دبوه شيسينتا إيو وذا هذا جمهورية فدرالك الصومالية إيو سوماليلان مدحوينه مركي واركي أهمية دوين أي لاذا هاي إيو قيمها أي كفر ديدو ديبو يقليلي دا قرن صوماليات أو مدايسان كونا ديسان مبادئ دا تلوذاقا wadaniyada cadaaladda iyo isku duubnaanta markii uu arkay in ay lagama maarmaan tahay in dib loo bilaabo wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland kuwaas oo ay ujeedadoodu ahayd in xal waara oo mira dhale laga gaaro tabashooyinka walaalaheen Somaliland madaxweynuhu markii uu dhageystay waxa uu tixgeliyay talooyinka ay soo jeedinayaan siyaasiyiinta mas'uuliyiinta aqoon-yahanada waxgaradka iyo waayeelada Soomaaliyeed ee ku aadan xal u helidda arrimaha Somaliland waxa uu magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood waxa gudoomiye guddigaas oo ah xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil sidoo kale waxa guddiga gudoomiye ku xigeen oo ah Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gulwade sidoo kale waxa jira 4 xubnood oo lafdhabar u noqon doona guddigan kuwaas oo kala ah Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdillaahi Baadiyow Dr. Ali Saciid Fiqi Sareeye Guuto Axmed Jaamac Muuse iyo xildhibaan Ali Axmed Jaamac Jingeli guddigan waxa hagi doona oo ay ku shaqayn doonaan dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala waxana waajibaadkooda ka mid noqon doona in ay dawladda federaalka ah ku metelaan wada hadallada isla markaana ay hogaamiyaan in ay diyaariyaan daraasad tifatiran oo ku saabsan dhinacyada sharciga siyaasadda taariikhda dhaqan dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ku aadan wada hadallada inay tala bixin joogta u soo jeediyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ka tala bixiyaan geedi socodka wada hadallada waa mahadsantihiin